qaybta ugu dambaysa ee barnaamijka waxa ina la fadhiyaa farshax xamiista oo la dhaho Cabdiqaadir Wadheere ku soo dhawow Cabdiqaadir Wadheere waa mahadsantahay Bob waxaan aad ugu faraxsanahay luqadayda aad ku hadlayso aadan ugu faraxsanahay laakiin haddaan wax yar hordhac aan sameeyo waxaan fiirsanayay barnaamijkan qaybtiisii ugu horeysay markii aad wareysanaysay ama mahayooyinka ama murtida Soomaalida aad ka hadlayseen adiga iyo dhalinyaradii Soomaaliyeed ee halkan nala fadhiday waxa igu soo dhacay oo soo xasuustay wax la yiraahdo ummad markay baaba'ayso dhaqankay ka baaba'daa marka hore ani hadda waxaan dareemaba maaragtay in hadana luqadii xataa ay si baaba'ayso marka waxaan ku guubaabinaa ummadda Soomaaliyeed bal in dhalinyarada iyo caruurta hadda soo korayso iyo kuwa dhalan doonaba in lagu fikiro in la baro luqadda Soomaaliga dhaqanku halkiisa haba noo joogo maadaama anigu aan farshaxan ahay waxaan halkan aan ku muujiyay suurado badan masawiro badan baan halkan ku hayaa oo ka turjumaya dhaqankeeni waayo mar rabo ummadeen iyo dalkeen inay baaba'aan anigu raalli kama ihi marka waa mahadsantahay Bob adiga iyo waxaan u mahad celinayaa telefishinka iyo ururka Netsom oo fursadan na siiyay inaan maaragtay galabta halkan ku kulanno oo aan ummadda Soomaaliyeed macnaha u gudbino message-ka ah magaca barnaamijka oo ah ila hadal waa wax qurux badan in la isla hadlo in la waraysto qof walba qofka kale inuu maaragtay oo weydiiyo maaragtay bal waxa uu go'anayo ama maaragtay uu rabo inuu yiraahdo way fiicantaa marka in ummadana loo gudbiyo way fiicantaa iyaga ruuxooda ummadda meel kasta joogaan in la waraysto oo bal la is waraysto way fiicantaa oo la isla hadlo waana mahadsantahay daawudan farshaxankan goorma bilowday farshaxanka waa moohibo marka hore aniga ugu jirtay waaye oo macnaha waa wax aniga maaragtay oo dhaxaltooyana waa yihiin abtigay baa farshaxaniista ahaan jiray marka anigana waan dhaxlay ilmahayga xataa hadda qaar baa farshaxaniistayaal ah markii dambena waxaan bilaabay inaan aniga si toos aan u barto isaga oon dhex galaba cilmi ahaan inaan u dhex galo ilaa aan soo gaaray hadda aniga inaaban macallin ka ahay oon aniga aan dhigaba صح marka waa qofka raba inuu barto farshaxnimada habkeebu u mari karaa waa su'aal fiican qofka raba inuu farshaxanka barto waxaa jira barnaamijyo aan diyaariyay aniga xataa maaragtay oon aad ugala kaashado ururada sida Netsom oo kale ciddii markaas danaynayso waxaan u furaynaa fursad in la siiyo wiigii macnaha 2 saacadood in ay yimaadaan meelaha oo macnaha ummaddu isugu timaado duruus noocaasan aan bixino weliba waxaan rajaynayaa inaan dhaqankoodana barno dhaqanka ay leeyihiin dadka inaan baro iyo sida maaragtay quruxda ay hidaha iyo dhaqanka uu leeyahay marka waa la bari karaa dadka waa sax weeyaan an horta fiirino in dhowr kamida in farshaxanka masalan hadda tusaale ahaan haddaan idisho halkan Holland aan joognaa masawirkan halkan waxaad arkaysiin aniga oo hor taagan oo ama musawir sameynayo akademiyada xorriyadda la yiraahdo ama Freie Academy af Nederlandka lagu yiraahdo ama Ingiriis lagu yiraahdo Liberal Academy halkaas irideeda horteeda anigoo taagan oo sameynayo farshaxankaas aad arkaysiin farshaxankan waxaa loogu talagalay 2002 ayaan sameeyay macnaha waxay ahayd tartan amal yani kaagii baa la doortay in dhowr wadamo macnaha waxaa ka soo qayb galay barnaamijkan dowlado badan ayaa ka soo qayb galay oo akademiyada ay u fidisay maaragtay inay ku ogaato bal dadka macnaha ajnabiga ah ee wadanka Holland ku nool talentiga ama xirfadaha ay leeyihiin dhowr kalena waad leedahay macnaha waxaan jeclahay in dhowr kale in arko waa gabar Soomaaliyeed oo ka turjumaysa hidaha iyo dhaqanka sida u labisan tahay waxay ku fadhidaa gambar agteeda waxaa yaalo ashuun iyo dabqaad ama idanka kan maaragtay ay bakhuurka ku shubtaan ay macnaha isku carfiyaan hareeraheeda waxaa yaalo qalabkii hidaha iyo dhaqanka burjikadii muxuu ahaa dharigii iyo macnaha waxaa meeshan yaalo isagana xaqinkii
ama mafiiqdii lagu fiiqayo dhulka iyo dambiishii wax lagu shubanayay background ama gadaasheeda waxaa ah gurigii oo ka kooban dhagax hoose oo iyo meel kore oo isagana dhis ah ama ood ah marka waa jawi qurux badan waay meeshay fadhido waxay ka turjumaysaa soomaalida guryaha ay ku noolaan jirtay siduu ahaa ayay ka turjumaysaa waa heer sare sidaan sababtoo ah aad bay dhaqanka u tuusaysaa waxaad arkaysaa halkaana muduladii ama cariishadii soomaalida ee dhulka webiyada iyo hortooda oo isagana aashuunkii iyo dhari karsamaayo iyo maaragtay laab yar oo maaragtay loogu talagalay maaragtay soomaalida waxay adeegsato macnaha nolol maalmeedkooda ayaa halkaas ka arkaysaan iyadana waa dhaqankeenii guryihii macnaha oo ka mid ah dalkeena meelaha kamid meelaha ugu qurqurxan ayay guryahan ka dhisan yihiin halkan waxaa kaloon ku haynaa dhaqankii miyiga isaga ruuxiisa waxaad arkaysiin geedkaas holo ma laga helaa hadda waa lasoo oroba waa geedkii waa la keenay may geelka maaha geedka sawirka midax ku yaala geedkan holo ma laga arkaya geedkan oroba shaqo kuma laha lagama arkaayo waa geedkan waa geed loogu talagalay wadamada la isku yiraahdo maaragtay tropical countrieska ama wadamada kuleelaha leh ayuu ka baxaa khaasatan geeska Africa ayuu ku badan yahay Soomaaliduna aad buu ugu badan yahay oo maaragtay waa geed ay iyaga si gooniya ayayba maaragtay ahmiyad gaar u siiyaan sax halkan waxaad arkaysaa geeli iyo gabar Soomaaliyeed iyo wiil Soomaaliyeed oo isla taagan calanka Soomaaliyeedna ay sidato mid kale oo isna geel ilaalinayo u soo socda iyaga waa isnabdaysanayaan waa isbareedinayaan marka waa iswareysanayaan marka waxaan waxay ka mid yihiin waxay ka turjumayaan dhaqankeennii suubanaa ee Soomaaliya haddii aan ku tuso kan wuxuu ka turjumayaa gabadhii Soomaaliyeed ahayd oo iyadana hidaha dhaqanka libisan waxay libisan tahay boqorkii iyo dhaclihii iyo toobkii waxaas ay libisan tahay aqal Soomaali oo miyiga ahna waa dabiici waa jawi dabiiciya oo aan isbedelin saas sameey halkan waxaan ku weydiinaya halka sawir intee bay ku qaadaysaa waxay ku xiran tahay waqtiga markaas aniga aan haystay ku xiran tahay marmar waxaa laga yaabaa inay 2 saacadood iga qaadato marmar waxaa laga yaabaa inaan 2 maalmood iga qaadato marmarka qaar waxaan sameeyaa marka kalaradu way kala duwan yihiin markaad oil colorka isticmaalayso ama colorka saliida markaad isticmaalaysid waxay u baahan yihiin inaad sameysid ugu yaraan 2 week inuu ka qaato halkii masawir oo sameynaysid si tartiib ah macnaha waxay ugu ekaadaan wixii aad adiga rabtay u noqdaan marka masawir kalena waa kan isaga ruuxiisa wuxuu ka hadlay wuxuu ka turjumayaa dhaqankeeni waxaa ku dahaaran fayntii maroodiga Soomaalida aad bay guryaha u dhigataa fayntan maroodiga waa wax qurux badan dhexdana dhiil baa taallo iyo 2 dhiilood waragkii iyo tooreedii ama maaragtay golxankii meesha yeelaan gabar Soomaaliyeed waxay saaran tahay faras wuxuu ka turjumaa kan macnaha raggii waddankay burburiyeen nimankii Soomaaliyeed waddanka waa burburiyeen dagaalo iyo waxaan loo baahnaa inay waddanka ka bilaaciyaan gabadhan waxay rabtaa inay waddanka xurayso marka waa macnaha waa wax guul ah hablihii Soomaaliyeedna hadda waxay noqdeen hormoodka macnaha gobonimada raadinta gobonimada Soomaaliya ugu dambeys midkaan soo qaadanaya ku kalena waa kasii dambeeya kan isaga ruuxis waa magaalada Muqdisho oo qadiimi ah gabar Soomaaliyeed oo qurux badan halkan iyadana joogto oo fikirayso oo waddanka quruxdiisa la yaaban laakiin hadda waa la burburiyay waxa soo dhan ma jiraan hadda xusuus camal marka waxaan rabaa dhalinyaradu inay ogaadaan waxaana dalku waxaanu lahaa jiray inay bartaan waxaad ka hadlaysay in dhiirigelinta in Soomaalidu waddankan ku nool oo afkooda ka dhumiyeen waran hadday caawimaad u baahan yihiin waxaan jeclahay in uu diro kelmadoos fasirayaan Hollandiis iyo Soomaali si ay wax ka bartaan dabadna waa u diray qofkii rabadna waa u diri doonaa bravo waa sidaas marka way baran doonaa taas haka walwalin luqadda way baranayaan in sawirahaagana way fiisan doonaan marba shahaado baad mar qaadatay shahaadooyin waxaan haystaa may waxaan ku wadaa kii aad wadaysaa maanta kii ugu horeeyey waxaa la igu siiyey abaalmarinta ugu sarreyso ee laga baxsho maaragtay akademiyadu ay bixiso anaa qaatay haddii weli ma aan macnaynin looxan markaan macneeyo halkan waxaa ku qoran luuqadda ingiriiskan ku qoray
qof kasta oo muruq leh ama xoog leh inuu domination ku sameeyo ama uu maaragtay uu cadaadiyo qofka daciifka ah. waxaan halkan ku qoray the strong dominates the weak. qofka liito waxa waaye kan xoogga leh baa madaxa uga taagan. marka dhibkaas waay baan yidhi sababtu maxay tahay. su-aashaas lagama jawaabi karo waayo caalamka oo dhan baa hadda wuxuu u egyahay caalam iska noqday maaragtay in the world of conflict. qaarkeed boob waxay keentaa xataa in dib u dhac hawada ku waa gooni laakiin midkay bini aadamku geysanayaan baa badan. sifeyn kartaa marka lagu yidhaahdo bal ka hadal waxa uu yahay farshaxan. farshaxan waa su-aal fiican. marka la yidhaahdo farshaxan muxuu yahay waxa waaye waa dhaqan soo bandhigid dhaqan markaas ummadu ay leedahay aad soo bandhigaysid sida wuxuu la mid yahay waxa waaye wuxuu la mid yahay geeraarka gabayada murtida waxyaabaha la isku guubaabiyuu ka mid yahay. farshaxanku marka waxa waaye wuxuu ka turjumaa waa murti aan hadlaynin laakiin maskaxdaadu ay qaadanayso muuqaal. صح muuqaalka sax. marka wax muuqdaad arkaysaa oo maskaxdu qaadan karto. marna waxbaa laguu sheegaa oo wixii laguu sheegaad maskaxdaadu qaadanaysaa. marna wixii indhahaadu arkaan bay qaadanaysaa. marna qalbigaada wax ogolaado. marka waxa waaye dareemayaashaa la shaqeynaya. marka qofka farshaxankaanuna sidiisaba waxau leeyahay dareenka lixaad buu leeyahay. bini aadamka caadiga waxay leeyihiin dareen 5 dareemayaal bay leeyihiin. qofka fanaanka ah waxaa u dheer dareenka lixaad waayo dadka siday wax u arkayaan hal buu dheer yahay isaga. صح kolay in adigu farshaxnimadaada in waxaadan weli gaarin ma jirto aan u malaynaya sababtoo ah in waxyaaba badan bad ii sheegtay oo macnaha in waxba dadku u dhegdhegataa xitaa jaamacad baa ka soo baxday oo macnaha ma jirtaa weli wax ku haweyntahay weli waxay yani ma ku haweyntahay in wax kale ina sii samayso waxaa badan soo samayso. waxaa jiro marka aan farshaxanka ka soo tago waxyaabaha kaloo ii dheeriga waxaa ka mid ah ma sheeg isla farshaxanka gudihiisa. isla farshaxanka sheeg farshaxanka waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda kale ee aan macnaha Netherlandka aan la noolnahay in aan isdhexgal samayno integration. dhaqanka Netherlandna in maaragtay la tixgeliyo maadaama aan ku noolnahay waddanka. anigu qaybo badan aan ka soo qaatay oo aan ka qayb galo oo akademiyada aan joogaa moogta. kan Soomaaligana waxaan rabaa dhalinyarada Soomaaliyeed ciddii diyaar u ah inay wax barato ama luqad Soomaali ha ahaato ama farshaxan ahaato hala soo xiriirso netso. markaas waxaan helaynaa dariiq aan ayaga maaragtay intaan ku kontroolno kimiyada intay yihiin tiradooda kabacdi aan ogaano maaragtay bal wixii loo qaban karo markaas. saasaan aniga ku talin lahaa. waayahay aad ayaad ugu mahadsan tahay. kaas wuxuu ahaa Wadheere oo wareyska qaatay wuuna mahadsan yahay. barnaamijka maanta intaasuu ka eg yahay.